بسم الله الرحمن الرحيم وصباحنimo arbacaha 10 bisha September sanadka 2025 oo ku beegan 18 bisha Rabiicul Awwal sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijkan aan idinku haynana waxa ka mid ah waxa soo baxaysa faahfaahin dheeraad ah oo la xiriirta weerarkii fashilmay ee Israa'iil ay ku doonaysay inay ku qaarajiso hoggaanka sare ee dhaqdhaqaaqa Xamaas waxaan idin haynaa macluumaad daqiiq ah oo daray ah oo ku aadan sida fashilka uu dhacay gaar ahaan sida ay ku badbaadeen hogaamiyaasha Xamaas baqadar ayaa u digtay maxaa ka jira in Turkiga uu u digay madhabaase in Mareykanku uu qadar siiyay macluumaad la xiriira weerarkan oo lagu doonayay in lagu fashiliyo Netanyahu wararkaasi oo dhan ayaan eegaynaa qadar waxa ay ku tilmaamtay weerarkan fal argagixiso oo geed aan lagu soo gamban Algeria oo taageero ka helaysa Soomaaliya iyo Pakistan ayaa ka dalbatay golaha ammaanka inuu isugu yimaado kulan degdeg ah gudaha Israa'iilna waxaa ka taagan niyad jab is-eedeyn iyo dhaleecayn la xiriirta fashilkii weerarkii lala gafay madaxda Xamaas laakiin wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil oo goordhow ka hadlay ayaa wacad ku maray in Xamaas aysan ka hareyn ilaa sandulle ay ku aqbasho waxa ay doonayaan wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka ku eegaynaa Xuutiyiinta oo ka warbixiyay weerar gantaal oo xalay ay ku qaadeen Israa'iil Iran iyo hay'adda IAEA oo heshiis gaaray kadib dhexdhexaadin ay samaysay Masar dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijka xiisadda nuclearka Iran dowladda waddanka Iran ayaa daboolka ka qaaday in ay heshiis la gaartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan kormeerka nuclearka ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA kaasi oo ku aadan hanaan cusub oo iskaashi ah kadib markii Iran ay hakisay wada shaqaynta ay la lahayd hay'addaasi sababo la xiriira weeraradii Israa'iil iyo Mareykanka ee bishii Juun lagu qaaday Iran afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Ismaaciil Bakhai ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku cadeeyay in kadib kulan ka dhacay magaalada Qaahira oo dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi iyo agaasimaha guud ee IAEA Rafael Grossi ay labada dhinac isla gaareen isfaham ku saabsan sida loola tacaalo xaaladaha cusub Grossi ayaa dhankiisa sheegay in heshiiska la gaaray Araghchi ee ku saabsan dib u bilaabidda kormeerka buuxa ee lagu sameynayo barnaamijka nuclearka Iran taas oo ku tilmaamay tilabo muhiim ah oo loo qaaday jihada saxda ah Masar oo dhexdhexaadisay labada dhinac ayaa tilmaamtay inay rajaynayso in heshiiska Iran iyo IAEA ee xalay magaalada Qaahira lagu kala saxiixday uu furo waddo cusub oo wadahadallo oo ku saabsan barnaamijka nuclearka Iran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badr Abdulcaati ayaa shir jaraa'id oo wada jir oo la qabtay Araghchi iyo Grossi waxa uu ku yiri waxaan rajaynaynaa in heshiiskan albaabada u furo isu soo dhawaansho aragtiyeed oo la yeesho saddexda dal ee Yurub si ay suurtagal u noqoto in la gaaro isfaham horseeda in Iran iyo Mareykanku miiska wada hadalka dib ugu laabtaan si loogu diyaar garoobo heshiis dhammaystiran oo cid walba qalcinaya hay'adda IAEA ayaa kala hadashay Iran si loo go'aamiyo siyaabaha dib loogu bilaabi karo kormeer buuxa oo lagu sameynayo goobaha muhiimka ee nuclearka kadib duqeyntii Mareykanka iyo Israa'iil ee bishii Juun Tehran ayaa hakisay wada shaqaynta hay'adda 13 Juun
maadaama IAEA ay ku guul daraysatay in ay cambaarayso dagaalka Israa'iil ay ku qaaday Iiraan dhamaadkii bishii aynu ka soo gudubnay ee Agost koox kormeerayaal ah oo ka socda qaramada midoobay gaar ahaan IAEA ayaa si kooban ugu soo laabtay Iiraan si ay u eegaan waxyaabaha laga bedelay warshadda tamarta nuclear-ka Bushehr oo ah tan ugu weyn ee dalka laakiin Araaqji ayaa waxa uu ku sheegay soo laabashadooda inaysan ahayn macnuhu in wada shaqayn buuxda lala bilaabay hay-addaasi wararkaas halkaas aynu kaga gudubno markaan bal waxaynu eegaynaa xuutiyiinta oo xalay intii lagu mashquulsanaa weerarkii Israa'iil ay ku qaaday dalka Qatar ka adeegtay gudaha Israa'iil tani oo qayb ka ah weerarada joogtada ah ee xuutiga ay ku hayaan Israa'iil haddaba habeennimadii xalay waxaa hadlay afayeenka xogaga xuutiyiinta ee dhanka ciidamada General Yahya Sariic waxaana uu sheegay in ay fuliyeen howlgal ciidan oo guul leh kaas oo lagu beegsaday bartilmaameedyo Israa'iil oo xasaasi ah oo ku yaala dekedda Ilaat garoonka diyaaradaha Raamoon iyo magaalada Qudus ee la haysto Yahya Sariic ayaa bayaan uu ka sii diyaay telefishinka wuxuu ku yiri ciidanka gantaalada ee ciidamada qalabka sida ee Yemen waxay fuliyeen howlgal ciidan oo lagu beegsaday gudaha Israa'iil iyadoo la adeegsanayo gantaal xawaare sare leh oo markaasi uu sheegay in si guul leh loogu beegsaday goobo xasaasi ah oo ka mid ah magaalada la haysto ee Qudus Yahya Sariic ayaa tilmaamay in weerarka ujeedadiisii laga gaaray isla markaasna malaayiin Israa'iiliin ah oo ku qasbay inay u cararaan goobaha dhulka hoostiisa ee gabaadka ah ciidanka Israa'iil ayaa dhankooda iyaguna waxa ay sheegeen in ay ka hortageen gantaal xuutiyiinta ay soo rideen kadib markii seeriga digniinta ka bixaya gantaalada laga maqlay magaalada Qudus ee la haysto iyo deegaano ku dhow badda Mootan arrimahani ayaa waxa ay ku soo aadayaan iyadoo xogaga xuutiyiintu dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay diyaaradaha droonka ay ku beegsanayeen magaalooyin ku yaala Israa'iil gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee Raamoon oo laba mar xuutiyiintu ay beegsadeen iyo sidoo kale gobolka Naqab iyo waliba magaalada Casqalaan xuutiga ayaa wacad ku maray in ay xoojin doonaan weerarada ka dhanka ah Israa'iil ilaa iyo inta Israa'iil ay wado weerarada ka dhanka ah Falastiiniyiinta marayka Gaza isla markaasna laga qaadayo go'doominta waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii Israa'iil ay ku qaaday waddanka Qatar faahfaahin balaaran oo soo baxaysa ayaan eegi doonaa gaar ahaan fashilka sida uu dhacay hogaamiyaasha Xamaas ilaa iyo hadda waxa laga ogyahay xaaladooda dadka ilaa iyo hadda la xaqiijiyay geeridooda waan eegi doonaa sidoo kale waxaan idin haynaa howlgalkaasi sida uu fashilmay gudaha Israa'iilna xalay waxaa lagu soo warramayaa inaan laga seexan sababtuna ay tahay fashilka ku yimid sirdoonka Israa'iil iyo Netanyahu ku faani jiray cidoo gacanta u qaado inuusan la gefin laakiin fashil culus baa dhacay Trump oo isna iska fogeynaya wixii dhacay isla markaasna dusha u saaraya Netanyahu intaan eegin wararkaasi iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiina xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa inay qiimo dhimis weyn ku samaysay adeegga ultrasound scanka iyadoo qiimihiisa laga dhigay 150 pound oo keliya halkii uu ka ahaa markii hore 240 pound waxaa sidoo kale xarunta ka howlgala Dr. Akan Efe oo ah dhakhtar rugcadaa ah kana soo shaqaynayay howlaha caafimaadka muddo ka badan 30 sano Dr. Akan Efe wuxuu xarunta ka howlgalaa maalinta Arbacada usbuuc kasta wixii faahfaahin ah oo intaa dheer kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada ee shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow qaari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Arbacada toos idinkaga imaanaya
istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnow HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. intaan u gudbin wararka la xiriira weerarka Israa'iil ku qaaday waddanka Qatar iyo weliba macluumaadka soo baxaya xagga Gaza aynu ka hormarno halkaasi oo Israa'iil weli dagaalka ay ka sii wado. waxaana lagu soo waramayaa in maanta dagaalka uu galay maalintii 705aad. xeryaha qaxootiga ee Al-Bureej ee ku yaala bartamaha Mareykanka Gaza ayaa laga soo warinayaa Israa'iil inay ka geysatay weerar kala duwan. waa tahay marka waxaanu eegaynaa wararka la xiriira weerarka Israa'iil ay ku qaaday waddanka Qatar. waxaan ku hormaraynaa ra'iisul wasaaraha waddanka Qatar oo xalay shir jiraa'id qabtay isla markaasna ka hadlay sida wax u dhaceen iyo weerarkan uu ku sifeeyay fal argagixiso oo geed aan lagu soo gaban. haddaba Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa sheegay in weerarka Israa'iil uu ahaa khiyaano cad, waxaana ku tilmaamay fal argagixiso oo dawlad ay fulisay isagoo ku adkaysay in Qatar ay si adag uga jawaabi doonto xadgudub kasta oo amni. wuxuu sheegay in Qatar ay u leedahay xaq inay kaga jawaabto weerarkaasi si cad iyadoo hay'adaha amniga durbaba ay bilaabeen baaritaanka dhacdada. waxa uu ku tilmaamay weerarka mid jabinaya qawaaniinta caalamiga ah iyo qiyamka anshaxa isla markaasna ujeedkiisa uu ahaa in lagu weeqo amniga gobolka. Sheikh Mohammed ayaa sheegay in koox sharci ah loo dhisay si ay u qaadaan tillaabooyinka laga maarmaanka ah isagoo Netanyahu ku eedeeyay inuu gobolka ku hogaaminayo burbur aan dib loo hagaajin karin. wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in wadahadallada socda ku aadan arrimahani ay ahaayeen codsi ka yimid dhanka Mareykanka, laakiin Israa'iil ay si ulakac ah u fashilisay dadaaladaasi. waxaa intaasi uu ku daray in amiirka Qatar uu telefoon ka helay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu cambaareeyay weerarka. waxaana uu sheegay in Trump uu u ballan qaaday Qatar in weerar caynkaasi ah mar damba uusan dhici doonin. wuxuuna sheegay Mareykanku inaysan ku lug lahayn arrintaasi. geesta kale afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar Majid Al-Ansari ayaa waxa uu beeniyay wararka sheegaya in Qatar ay heshay digniin weerarka ka hor. waxaana uu xaqiijiyay in Israa'iil ay ku guuldareysatay in ay disho wafdigii wadaxaajoodka ee Xamaas ee magaalada Dooxa ku sugnaa. laakiin wuxuu qiray in 6 qof ay ku dhinteen weerarkaasi oo ka mid yahay wiil uu dhalay hogaamiyaha ururka Xamaas ee Gaza Khaliil al-Haya iyo xubno kale oo ka mid ah ilaaladiisa iyo xubin ka tirsan ciidamada amniga ee dalka Qatar. waanu imaan doonaa weerarka sida uu dhacay iyo fashilka dhacay, laakiin markaan balan eegno Donald Trump oo iska fogeynaya wixii dhacay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday Qatar uu ahaa go'aan uu gaaray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, balse arrintan aysan mar kale ku dhici doonin dalka Qatar. Trump ayaa barta uu ku leeyahay baraha bulshada waxa uu ku sheegay in wadahadal qadka telefoonka uu kula yeeshay amiirka Qatar Sheikh Mohammed bin Hamad Al-Thani iyo weliba ra'iisul wasaare Mohammed bin Abdulrahman isagoo xaqiijiyay in weerar sidan oo kala aan ahayn mid dan ugu jirto Israa'iil ama Mareykanka. waxaan intaasi uu ku daray inuu ka xun yahay go'aanka uu qaatay Netanyahu. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ku amray xogayaha amuraha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio inuu dhammaystiro heshiiska iskaashiga difaaca ee Mareykanka iyo Qatar, isagoo xusay in Qatar si geesinimo leh uga shaqayso dhexdhexaadinta nabadda. Trump wuxuu qeyrtay in digniin loo diray Qatar taasi oo loo mariyay ergigiisa bariga dhexe Stephen Witkoff, laakiin wuxuu sheegay inay ahayd goor dambe taasi oo la jaan qaadaysa hadalkii uu jeediyey afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar Majid Al-Ansari oo beeniyay in Qatar lagu soo wargeliyay weerarka ka hor weerarka inta uu soo dhicin. Trump ayaa sidoo kale ku baaqay in la sii daayo maxaabiista Gaza iyo in dagaalka halkaa lagu joojiyo. waanu imaan doonaa warka ku saabsan fashilka, laakiin balan eegno markan arrimaha diblomaasiyadda anoo ku socona. Algeria oo taageero ka helaysa Pakistan iyo Soomaaliya oo golaha ammaanka ay ku wada jiraan ayaa waxay dalbatay kulan degdeg ah inuu iskugu yimaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay. haddaba dowladda waddanka Algeria ayaa lagu soo waramayaa in ay dalbatay kulankan, waxaana lagu soo waramayaa kulanka inuu dhici doono saacaddu marka ay tahay 10 fiidnimo waqtiga Maka
iyadoo warkan intaasi ku darayo in kulankan la filayo in ay dhammaanba wadamada ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay si adag uga hadlaan arrintan waxaa kaloo taageeray kulankan in degdega lagu qabto Britain iyo Faransiiska telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa waxa uu ka soo xigtay safiirka Israa'iil oo fadhiya qaramada midoobay in Tel Aviv aysan had iyo jeer wax u sameyn si waafaqsan danaha Mareykanka isagoo raaciyay mararka qaarkood Washington horey ayaan ugu sheegnaa mararka qaarkoodna marka aan fulino weerarka ama mararka qaarkood marka aynu tilaabo qaadano waan ku wargelinaa laakiin wuxuu yiri weerarkan mas'uuliyadiisa inaga ayaa qaadanayna waxa kaloo isna goordhow ta hadlay wasiirka gaashaandhigga Israel Katz waxa uu sheegay in Israa'iil ay si cad u beegsan doonto hogaamiyaasha Hamas isagoo yiri meel walba ay joogaan waan ku beegsan doonaa waana burburin doonaa Hamas iyo Gaza haddii aysan aqbalin shuruudaha aynu wadano laakiin gudaha Israa'iil waxa lagu soo waramayaa sida ay qorayso jariirada iyo dacwada Haranood in xaaladdu ay tahay mid adag isla markaasna xalay oo dhan hurdo aan la ledin sababtuna ay tahay is-eedeynta iyo is-hiifka ku aadan fashilkii ku dhacay weerarka Israa'iil ay ku qaaday waddanka Qatar arrintaasi oo si sawirkan kaga muuqata Netanyahu uu toos ula socday halkan waa xarunta laanta sirdoonka Israa'iil waxa la sheegayaa in wasiirka gaashaandhigga iyo Netanyahu ay toos ula socdeen weerarka sidii u dhacayay diyaaradaha meesha ay marayeen gantaalada xilliga la ridayay dhammaan macluumaadkaasi oo idin laakiin meesha wax ka dhacay fashil haddaba sidee wax u dhacay marka gurigan halkan kaga muuqda waa mid ka mid ah 4 guri oo la weeraray gurigan hogaamiyaasha Hamas ee la rabay in la beegsado ayaa ku sugnaa horta warka ku saabsan waa loo digay Qatar oo Mareykanka ayaa u digay warkaas markii hore waxa sheegtay afayeenka aqalka cad Caroline Levitt oo shir jaraa'id qabatay laakiin isla markii ay dhameysay shirka jaraa'id Majid al-Ansari baa hadlay oo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar arrintii uu beeniyay Trump baa kadibna hadlay laakiin Trump wuxuu leeyahay weerarka oo socda oo gantaalkii u dhacay baan Qatar la hadalnay maxaa laga qaban karaa warkaas marka Qatar waxay leedahay waliba ra'iisul wasaaraha Qatar wuxuu yiri 10 daqiiqo kadib markii weerarka u dhacay ayaa Mareykanka waxay yiraahdeen weerar baa idinku soo fool leh markaas aan u sheegnay buu yiri in weerarka u dhacay wuxuu kaloo qiray hubka Israa'iil ay isticmaashay xalay inuu ahaa hub aysan arkin dhammaan raadarada Qatar wuxuu yiri hub aan la qaban karin ba isticmaashay Israa'iil marka horta meesha waxa ka cad Mareykanka inuusan u digin Qatar dad baa waxay lahaayeen iyo la fugurayaal arrintan waa arrin loogu talagalay Netanyahu in lagu geliyo dhiiqo laakiin waxa soo kaba jira sheekadan Mareykanka ama ha ogaado ama uusan ogaanin laakiin Qatar umuusan digin ka hor weerarka waxa kaloo soo baxay marka waxa kaloo soo baxay war sheegaya sirdoonka Turkigu inay u digeen Qatar warbaahinta Turkiga iyo saxafiyiinta Turkiga qaarkood gaar ahaan kuwa ugu waaweyn ayaa xalay oo dhan waxay faafinayeen war ku saabsan in laanta sirdoonka Turkiga ee magaceeda loo soo gaabiyo MIT ay Qatar u digtay kadib markii ay ka war heshay diyaaradaha F-35 oo soo galay hawada waddanka Qatar waanu iman doonaa meesha ay suurtagal ka tahay diyaaradahaas inay soo mareen laakiin aan ku socono warkan horta gurigan waa guriga la weeraray arrinta cajiibka waxay tahay nimankan waxay ku badbaadeen ilaahay xaggiis Qatar ma isa badbaadin Mareykan ma isa badbaadin Turki ma isa badbaadin gurigan waa guri weyn waa guriga uu degan yahay Qaliil al-Ahya dhammaan mas'uuliyiinta Hamas oo ka mid yahay Qaliil al-Ahya oo ka mid yahay Qaarid Mishcal iyo Maxamed Darwish dhammaantoodba goobta way joogeen arrinta cajiibka waxay tahay weerarka markuu dhacay 4 saac kadib Netanyahu wuxuu ku adkeysanay in la dilay dhammaan hogaamiyaasha Hamas run bay ahayd way ku sugnaayeen goobta Israa'iil macluumaadka ay haysan macluumaad sax ah ayuu ahaa oo nimanka inay guriga ku sugnaayeen laakiin arrin la yaab leh dhacday gurigan wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood qaybta la duqeeyo hadda aad u jeedaan waa meeshii la rabo inay ku shiraan
nimankan qaar ka mid ah oo qaarid mashcal uu ka mid yahay turkiga ka yimaadeen weli waxaa la xaqiijiyey israa'iil weerarka inay diyaarisay maalmo ka hor waxayna ogeyd inay imaanayaan qadar dadka qaarkood waxay leeyihiin hindisahan la soo gudbiyey ee la xiriira in xamaas ay sii daysay maxaabiista iyo wadahadalka oo dhanba arrin waxay ahayd lagu talagalay si hadalka loo dhigay ejbaan ma caddayn karto laakiin sidaas ayaa la leeyahay nimanka marka waa la sugayey halkaas marka waxaa ka caddaatay israa'iil in gudaha turkiga aysan waxba ka samayn karin nimanka markay isku yimaadeen ilaa waxaa laga hadlaya arrin adag trump loo farbu u taagay xamaas wuxuu ku yiri maxaabiista soo dhiiba haddii kale wax aan la arag oo la maqal baa dhici doona weliba raggan dibadda jooga waa loo hanjabay waxaa la yidhi maxaabiista israa'iil ee lagu haysta marayka ghaza haddii aad wax yeeshaan adinkaa mas-uulka ah israa'iil way laynaysaa baa lagu yiri waxa inay socdaan baa la moodaa maxaa dhacay marka nimankan marka gurigan qaybta la duqeeyey ayay ku sugnaayeen guriga inta kale oo fiyuudo waxa maysa gaarin daqiiqada ka hor weerarka intuusan dhicin ayaa ilaahay amarkiis waxay yidhahdeen qaybta kale aan ku shirno waa isla guriga dhexdiisii waa soo lugayeen qaybta kale ay fariisteen raggan dhintay oo ka mid yahay wiilka qaliil alxaya waxay ku sugnaayeen qaybtan waxaa kaloo ku sugnaa isla dhintay ninka u qaabilsan dhanka maamulka xafiiska maamulka hogaamiyaha xamaas qaliil alxaya marka halkaas waxaa ka caddaatay in nimanka horta aan loo digin qadarna aan loo digin qadarna ay ku jahwareersan tahay israa'iil hubka isticmaashay dadka qaarkood waxay leeyihiin diyaarada F-35 weerarkan fuliyey dadka qaarkood waxay leeyihiin may diyaarad drone ay ahayd dadka qaarkood waxay leeyihiin waaba gantaal gudaha meesha laga riday waa lagu jahwareersan ilaa hadda laakiin waxa la hubaa waxay tahay oo israa'iil ay ka shalaynaysaa oo Netanyahuna uu ogaa hogaamiyaasha xamaas meesha inay ku sugnaayeen ereygu isticmaalay wuxuu ahaa dhammaan hogaamiyaasha xamaas ee A-list waxa weeyaan dadka ugu sarreeya yani liiska koowaad ayaa meesha lagu beegsaday laakiin de ilaah dil ayaa dhinta nimankaan marka goobtaas ay ku sugnaayeen waxa kaloo la aaminsan yahay oo wararka qaarkood sheegayaan dhanka macluumaadka sirdoonka iyo dadka arrimaha diblomaasiyadda ka hadlaba intuba sheegayaan wiilka qaliil alxaya inuu gacanta ku hayay telefonka aabihiis oo telefonkaas lagu raad joogay telefonkana marka hadduu aabihiis gacanta ku hayay bacdama guriga uu joogo meeshaas inuu fadhiyey laakiin israa'iil ay qiyaasaysay inay isla joogaan raggan oo dhan oo markaasna ay tahay suurtagal in meesha lagu beegsado dhammaantood halkaas marka maxaa ka caddaatay in dhammaan aysan waxba ka jirin wararka sheegaya in raggan la beegsaday yaa ka mid marka raggan waxaa ka mid ah qaliil alxaya zahir jabarin waa madaxa xamaas ee daanta galbeed waxaa kaloo ka mid ah qaarid mashcal waxaa kaloo ka mid ah naazir awdala oo weliba qaza ku dhaawacmay 2023 maxamuud darwiish baa kaloo ku jiray yani dadka go'aanka iskale ee xamaas ayaa meeshan ku jiray dhammaantoodba arrinta marka waxay noqotay arrin fashila israa'iil farta dhexda ka qaniinaysaa Netanyahu ceeb buu dhex fadhiya waxaa leeyahay wuu qamaaray qamaarkiina waa la gadoomay muxuu ku qamaaray qadar inuu weeraray waxyaalaha hadda la isku haysta waxay tahay qaanuunka wuxuu leeyahay aniga waxaan weeraray xamaas hadda xamaas kumaadan weerarin qaza kumaadan weerarin waddanka qadar ayaa ku weerarta waxaan daawanayay xalay falaqayn uu sameynayay nin horey uga tirsanaa jiray CIA-da Mareykanka oo aad uga soo horjeeda weerarkan kuna tilmaamay fashil diblomaasiyadeed iyo fashil amni wuxuu leeyahay Israa'iil waxay awooday in qaliil xay hadii ay u baahan tahay ay gudaha qadar ku qaarijin karto intay adeegsato canaasir laakiin bamba inay isticmaasho diyaarada ku duqayso wadan madax banaan waliba Mareykanka la xulafo sida halka loo dhigayo arrintu wuxuu leeyahay marka waa arrin aan la aqbali karin haddaba diyaaradaha marka xagee soo mareen macluumaad kala duwan baa soo baxaya horta wadanka qadar waad ka warqabtaan
waa wadan aad u yar dadkiisa dhowr boqol oo kun meel wuxuu ku yaalaa marka aad iyo aad u adag intay diyaaradda halkaas ka soo tagto oo soo martay Jordan oo Sacuudiga soo martay aad bay u adagtaa inkastoo laakiin mas'ala ay sheegayso in diyaaraduhu sidaan u soo duuleen laakiin waxaa jirta arrin kale oo xoog badan waana war kasta suurtagalka ah oo hadda khubarada militariga iyo kuwa sirdoonku ay isku raaciyaan diyaaradahan waxay ka soo duuleen Israa'iil waxay soo mareen Syria waxay soo mareen Iraq kor bay ka soo wareegeen kadibna Kuwait iyo Iran badda u dhaxaysa oo caalamiga ah ayay ka soo gudbeen macnaheedu marka waxa weeye in Mareykanku arki karay suurtagal waxa ah Turkiga inuu arkay diyaaradahan sababtoo ah hawada Iraq iyo hawada Syria hawada Turkiga way dhowdahay 15 diyaaradoodna ma kala hari karaan oo isla socda oo waliba ay la socdaan diyaaradaha booyadaha ah ee markaasi hawada ku siiya shidaalka diyaaradaha dagaalka HBN ma cadeyn karto ilaa hadda meesha Israa'iil diyaaradahu ay soo mareen laakiin waxaan idin soo gudbinaynaa waxa la isla dhex marayo gaar ahaan khubarada arrimaha militariga iyo kuwa sirdoonku ay sheegayaan marka waxa leeyahay suurtagal waxa ah in diyaaradaha ay soo mareen dalka Syria Iraq ka soo gudbeen labadaas wadanba ma leh nidaamka hawada ee difaaca ma leh tan kale diyaaradan F-35 Shiinaha iyo wadamo kooban baa ka hortagi kara waa sida uu leeyahay wasaaraha Qatar isaga laftigiisa baa qiraya wuxuu leeyahay hub aanan arki karin ba isticmaashay Israa'iil waxay u baahan tahay marka diyaaradan F-35 inay tahay laakiin waa la yaaban yahay sababtoo dhawaan Qatar waxay soo iibsatay nidaamyo difaac oo Mareykanku uu leeyahay oo casri ah oo lacag aad u fara badan ay ku soo bixisay waliba dhawaan ayay ku soo bixisay dadka qaarkood marka xalay waxa la isticmaalayay waxaan arkay khubarada Turkiga waxay leeyihiin waxba kama jiraan waxaas aad aragteen hubka laga iibinayo wadamada Carabta waa la maamulaaba haddii la doono waa la dibin karaa laakiin waxaan arkay qabiil kale asana Masaariya oo leh arinta suurtagal ma ahan laakiin warkaas waxa xaqiijinaya hadda kor Malaysia waxay ka soo iibsatay Mareykanka diyaaradaha F-16 wasaaraha Malaysia wuxuu yiri diyaaradaha anaga ma maamulnaba Jarmalka laftigiisa waa Jarmalka oo NATO ku jira hadda kor wuxuu sheegay shaki inuu ka qabo diyaaradaha F-35 in Mareykanku toos u maamulayo haddii xitaa la soo iibsado marka wadamadan lacagta balaayinta ku bixinaya agabka military ee Mareykanka shak weyn ba ku daharan bay leeyihiin khubarada arrimahan ka faalloota ama falanqeynaysa maxaa kaloo sii cadeynaya diyaaradaha inay soo mareen Syria hadda la socotaan laba maalmood ka hor waxaan idin soo gudbinay war ku saabsan Israa'iil inay duqeysay dhowr magaalo oo ku yaala wadanka Suuriya waxa kamid ah Ladaqiya Humus ayaa kamid ah waliba magaalada Tadmur ayaa kamid ahayd Tadmur waa meel la filaya saldhig inuu ka sameeyo Turkiga wararka qaarkood waxay sheegayaan in la burburiyay nidaamyada raadarada ee wadanka Syria oo maalmaha dhismo lagu waday marka suurtagal waxa ah in Israa'iil ay ku tala gashay Syria bacdama ay hawada doonayso in la wareegto oo ay dhisto oo nidaamkeeda difaaca iyo raadarada dhisto in la burburiyo sababta isku mar ayay waxay duqeysay Ladaqiya iyo Humus iyo Tadmur marka waxba isku soo aadiyay ayay leeyihiin khubaradu arinta marka waxay ku soo gabagabowday halkaas dadka dhintana ilaa hadda waxa la xaqiijiyay madaxii xafiiska Qaliil al-Hayya iyo wiil u dhalay Qaliil al-Hayya laakiin hogaamiye ka tirsan ururka Hamas oo shirka joogay Suhayl al-Hindi wuxuu leeyahay ilaa 3 mas'uul oo kale oo Hamas ka tirsan laakiin aan ahayn rag waaweyn ayaa wuxuu leeyahay aan warkooda aan lahayn laakiin markaas waraysigu bixinayay waa markii weerarka u dhacay Jazeera la hadlay marka wali uu magacaabay dhowr qof buu magacaabay marka waxa laga yaabaa inay yihiin ragii amaanka u qaabilsanaa hogaamiyaasha arintu marka waxay ku soo gabagabaysaa wax weeyaan gurigan in Israa'iil ay soo wada burburin Ilaahay amarkiis intaas duqeyntu ay ka dhacday waana qolkii fadhiga ee shirka ka dhici lahaa go'aanka ugu dambeeyay ku gaari lahaayeen warqadii baa laga hadlayay Trump maxaan ugu jawaabnaa sidee arinta loo xallin karaa marka arinta halkaas ayay ku soo dhamaatay wararka marka waa sii socon doonaan waxaan idin soo gudbin doonaa waxa arintan ay ka macno tahay khubaro ka hadlaysa diblomaasiyiin ayaguna ka hadlaya arintan waxay gobolka ka dhalin karto iyo dagaalka Gaza xitaa Netanyahu arintan laftigeeda ma wuxuu ku doonayaa inuu ku qariyo dagaalka Gaza waxa ka socda shalay waxaan idin soo gudbinay barnaamijkeena xalay idin kugu soo gudbinay arrin la yaab leh oo ka dhacday Gaza bannaanbax ka dhacay bartamaha Mareykanka Gaza waa magaalada Gaza oo Netanyahu uu doonay dadku inay bannaanbaxaan dadkii waxay soo qaateen karfan cad ba soo qaateen waxay yiraahdeen
وكل من أنا ماشى ما كبحينه marka Mareykanka waxa taa xal sheegay wuxuu leeyahay dadka Gaza uma soo raalaha Mareykanka baan waa qaramada midoobay waxay leedahay dadka magaalada Gaza degan ma aha Gaza oo dhan magaalada bartamaha waa al-Sudan iyo al-Zaytun iyo meel uma socdaan shalay marka banaanbax bay qabteen duqeynta Israa'iil oo socota waxa isku yimid 200 qof waxay yiraahdaan meeshan waa ku dhimanayna meel uga socno way dadkan way og yihiin in la barakicinayo marka go'aan bay qaateen waxay raad karfanteedna waa tana meeshan waa ku dhimanayna oo ku duugaya marka wararka qaarkood waxay leeyihiin Netanyahu arintan wuxuu ugu tala galayba waxa la yiraahdo wada xaajood meesha inuu ka saaro iyo arinta Gaza ka socota inuu ku mashquuliyo hadda indhihi caalamka oo dhan waxay ku jeedaan qadar bay ku jeedaan marka xaaladdu meel adag bay maraysaa si aad ula socotaan wararkan xasaasiga haddii aadan ku xiran HBN wararka ku dhaafi doona haddii aad ku xirantahay waad ku mahadsan tahay wax ku sheegaya ma jiraan aad baad u mahadsantihiin inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino ku soo biira HBN waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo siimoodi dahablaha ugu weyn geeska Afrika haddii aad samayso wacan dahab aad sugayso saadaalinaysay Singapore iyo saf Bahrayn iyo Hindi noocyada u sarreeya oo si wacan loo naqshadeeyay waxaad ka helaysaa xarunta siimoodi waa dahablaha ugu weyn geeska Afrika dahabyada uu iibinayo waxa kamid ah Bahrayn Singapore Hindi designs waxaana aad ka helaysaa jumlo iyo tafaariiqba waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa faahfaahin dheeriya waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashada Macrifa Academy salligii quraanka iyo suubanay diinteena siradii rasuulka iyo ahadiista sugan iyo saxnaanshaha aqeedada halka aan ka sugayno si wacan noo barayso salligii islaamka waa Macrifa Academy oo sahal ku bari doonto online kuugu saxayso saacad walba aad heli doonto ee sidaas haatan ogowo Macrifa saaxiib laahow Macrifa Academy akademiyada Macrifa waxay bixisaa casharada quraanka kariimka ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sirada rasuulka aqeedada higaada luqadda carabiga waxaana ay gaar la tahay Macrifa Academy casharadu waxa ay ku baxayaan 3 luqadood oo kala ah Soomaali Arabic iyo English ku baro quraanka iyo culumta shariicada islaamka adigoo gurigaaga jooga faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda